waxaan leenahay dad Soomaaliyeed nahay dawladdeeda iyo dalkayga waan jecelahay qas iyo qalalaasa midna lama ogol waqtigan joogni abaarana haysana waad arkaysiin waxaan sama qabanlaynaa oo ma maqalaa hadalla badan oo xagga sala lagaga yimaada iyaan aad maqalaa waxaasi waa waxaan ka xunahay waa waxaan noo gudura weeyaan ninka sayla amba salil baka soo qaad dadka ku cashuura ee lacagta ka gurta ee magafaha de meesha kama bixina dad looma waayini hala naga qaadan leenahay annagu ilaahay baa laga cabsadaa bilaadan baa laga cabsadaa war hala naga qaada kaas dantayada ma aha cidna caasi kuma nihin cidna cudur kuma nihin ka gada buursi waa dadka yaga waa dadkii is dhalay isaaq waa walaalkaya wayna bin axmed baba lagu yidhaa dee wixii fiican unbaan walaal ku nahay wixii xun walaal kuma nihin inaa beelaha la iska hor keena ama dadku isku xalool ma qaadana dee ma fiicna waxaanse leenahay war waqtigan maanta aan joogna aan eegno caloolxumana aan iska dayno waa wararka han maqlayna se hala iyana maanta intii ka dambaysa meesha ha laga masaxo ninkaa magafa meesha ha laga qaado haddaa baadiya nahay anigu baadiya ka soo galay imika wadaga hala naga qaadan anugu leh lacagtii dawladdana lagu fangaranayo ila ogosha waa sidaasaa daacad lagu yahay qof nooma maro safar nooma maro waan ka xidhanna waqtigaan joogina waad arkaysa allah kaa naga qaado inteena kalena allah isku keen asturo dad dawlad jecel oo dad jecel la waa nahay oo diin jecel la waa nahay run un baan naqaanaya beenna ma naqaano waaban ka dhaxeenu waxaan leenahay waa ka cawanee xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha iyo madaxweynaha wasiirada waxaan leenahay waxa laga qabtay ranka hal naga bedelo haddii dibasha taagan oo ma dul qaadan karna anagu dibasha taagan oo dhibana fiidiya taagan wasiirada maaliyadda waxaan leenahay ina ka adeer dhigay meesha adeer ka mas'uula madaxweynaha laantii iyo madaxweynaha kala ina ka adeer mas'uula ka hooseeya madaxweynaha soo haya waxaan leenahay ina ka naga qaad mid kale lagu soo bedelo si degdeg ah jawaab degdeg ah wanaag ka helo naga qaad dadkii shacabkii aad buu kacsan yahay uu gadoodaya waa rab joognaa uu gadoodaya oo dhimasho ku jiraan dawladda Soomaaliland waan nahay yaan ka mid nahay degmada Selil baan nahay wax fidma uma ogolin wixii fidma keenayana ma ogolin ninka ibaka reerka eelka nahay aan isku alool xigno ibaka codka xun ku haya meesha dee hadduu ka hadlado dadka cishadii iyo haddii wala degaan baa ciisaale degmada ya fidma in laga abuuro ma ogolin ninkaa shalada uu ku dhaqaaqay annaku raalli kama yihin ninka kastanka sayla haysta ee dawladda maaliyadeeda dadka ku mafgaraynaya ee dadka ya iskaga horgeynaya taa ma ogolin gobolka iyaga hadday degmada xariirad baan nahay waxaan ka hadlaynaa wararka aan ka maqlayno gobolka Selil aan ku maqlayno fidmoodaha shakhsiga ah ee la yaqaano Faysal Magafe waa shakhsi wada fidmooda ah isku horgeynaya labada beelood ee isku xiga haddaba waxaan fariinta aan faraynaa xukuumadda Siilaayo uu ka yahay galmudug waxaanu leenahay ninka shakhsigaasi dib adag ayuu ku hayaa shacabka iyo dalkaba haddaan nahay shacabkii ka soo jeeday gobolka Selil gaar ahaan degmada Xariirad dhalinyaro uqaal iyo ma taqaanay waxgarad intaba aan u dhanahay shirkan jaraa'id ku qabanay isla xaalad gudaheega waxaanu ka raali gelinaynaa hay'ad shaqaasi fidmo isku horgeynaysa dadka meel ku wada nool haddaba ana hadalka sii dheereysan waxaan leeyahay shakhsigaasi dib adag ayuu ku hayaa shacabka iyo dalka xilliga dawladda waqti kasta uu isku fangareeyaa fangareyntaana
وكامبين اسكو هرجينيو ديجان إسلا يلا waxaan leeyahay halkii laga keenay hal la geeyo wasiirka maaliyadda ee marwo Samson waxaan faraynaa in ay si codsigeega amba shirka jaraa'id ee qaal iyo waxgaad bal loo dhan yahay inay noo fuliso oo shakhsiga ka qaado meesha ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay raxmad iyo raad wanaagsan la siiyo dawladnimadana taam Allah inooga dhigo calankana Allah inoo toosiyo faa'iidadana Allah inoo wala gaarsiiyo dadkuna waa wax dhashay wax walba dhashay weeyaan wax maragta meel ka yimid oo maragta wadana kale inaga yimid ma wixii dadka dib wadana dawladdu inay ka qaado ka qabato weeyaan halka jooga sayla la ilaaho maysal ninka la ilaaho ee magafal loo yaqaan ninkaas dib ku hayaa baa liiri gobolka aad iyo aad buu dib ugu hayaa anagu reexrada hadaan sayl waxaan joognaa xariirad lowga kama galo waa nalgu cashuuraa عشور سو عم باستبار وطن كلو قادنينو $30 ريالنا ليلا dadkii baan laga cadibay marka dadkii nooma maro safarkii Jabuuti uu naga xilay warninka dawladdu wax naga qaad haday dawladdu dawlad calanka aan la leenahay oo la midnahay dadka haday tahay ana laga qaadanika dawladda madaxdan ka codsanayna taa waxaan ka codsanaynaa madaxda ana laga qaadanika dadka walaalaha ee meeshan walanahay in wali joogno waa wax كليك يا ما قبل كودن هيست قبل كان دقمة يدور لو هيست وياه أنا رجع قاعد نكاح أنت عطسي بان كلينا السلام عليكم نكال الله شاقيو إن كارقبها تدولة تقف كلمة وإذا ماشي وموعي صدق سوري فرنسا إن وحنا كان إنه لبق شخصي أو ميل وذا جوكت سكور جيدي وحاينا برعك مجرت هرجيسك مجرت قف ماشي وجوجا ونلقو عشورة العقل لك هذا ونن لو يعدها هين مجرت قف كسوق الحاجة ووضن كسوق لي يقول العقل لك هذا ونن لو يعدها هين مجرته قف كي ماشي كل شيء وحل العقل لك هذا يا هذا أنا بتعمل لكم ما ردي محلي أنا وكا وحولي ببلاوي إنه لبق قبيله وذا تالي سكور جي ما قرنا إنه تا هلا نجا قاعد كاسي أنا قحنا ما هي كاسي أنا قحنا نو هياي وأنا دب أهينو نو هياي ما جرتو تكلم غيرها وذيال نك فرح هذين يو تفرح حد مجين أنا قد ضد بيسود هالسان ناي إنا يدب دم بإمتنا ما دونا إنه حاليا هاي نك يدب ورا يدولدو أكيد سهل نجا قاعد السلام عليكم ورحمة الله